ugu dambeyntiina xiriyaha Dadaab haweeney baratay kuna shaqaysata cilad bixinta baabuurta ayaa waxa ay sheegtay in shaqadaasi ay u geysay duruufta nololeed ee la soo diristay waxay xusteen shaqadaasi oo dumar badan aanay qabanin ay hadda iyadu ka hesho biilasha caruurteeda waryaheena Cabdiwali Cabdi ayaa warbixinta nooga soo diray Dadaab Ruqiya Cabdullaahi waxay wax ka baratay dugsiga farsamada gacanta yeeb ee xirada Xagardheera oo ka mid ah xiriyaha qaxootiga ee Dadaab waxayna ka mid tahay gabdhaha tirada yar ee bartay shaqooyinka xooga u baahan oo inta badan lagu yaqaan in raggu ay qabtaan gabadhani oo baratay farsamada makaanignimada iyo cilad bixinta baabuurta waxay nooga warantay sababta ku dhalisay in ay qabato shaqadan dhif iyo naadirka ah waxaan bartay xirfadda makaanikada waxa iigay daruuf aan fikiray waxaan aaday hay'adda NRC yeeb center waxay bartay xirfadda makaanikada marka way aan dhameeyay waxay keentay geerishkii maasha Allah cilmi badan ay iga siiyaaday hadda waan ku shaqaystaa nolol maalmeedkayga waan ku dabartaa maasha Allah yoomiina maxaa ilmihayga u dhacsan karaa dartaan maxaa ahay noloshooda haddaba sheekada Ruqiya si aan wax badan uga ogaano waxaan subaxnimo hore booqday gurigeeda waxaana ka wareystay sida ay iskugu keento nolosha gurigeeda iyo shaqadan adag ee makaanignimada hadda waa subax quraacan kariyay hoosh gurigan qabanaya ilmaha cunto u karinaya marka cuntada kala siiyo oo ilmaha dugsi qaar u diro qaarna iskuul u diro goobteeda shaqada aadaya shaqadii aan soo shaqaysanaya galabtii imaanaa soo waxa waan soo adeeganaa wixii meesha Ilaahay iga soo sahlo waa imaana marka imaan cashadooda haddana u karsanaya haddana nadaafad guriga ilmihii hagaajinaa maanta dhan wasaqdi ay ku dhaxboodaan ka hagaajinaa waa siixsiixinaya cashadoodan dharjinaya cabaarana sana marka 5 saac bartay tuba soo dhacaysaan aadaa tubadii waxaan ka imaanaa 6 saac bar habeenimo biyaha ee ku joogi lahayn maanta ee ku noolaan lahayn habeenkii soo dhaaminaa wax yar hurda inta hurdi kar waa dareemi kartaa haddana 11 soo kacay quraac karis haddana nadaafadii ilmi diyaariskii ilmihi haddana kala diraadan goobta shaqo sidii aan aadaysay hadda goobteeda shaqo ayay imaatay waxayna sida caadada u ahaydba hore ka sii bilowday shaqadeedii maalinlaha ahayd haddaba maxay tahay caqabadaha ay Ruqiya la kulanto caqabada ugu weyn waa lagu xadgudba waxa lagu leeyahay dumar baa tahay baabuurta hoosteed galaysa maxaa ahay caay aday bulshada xageeda laakiin muxuu ahay dadka hadda aan la shaqeysto wax caqabada kale ma kulmo rag aan la shaqeysto laakiin bulshada banaanka iyo dadka baabuurta loo hagaajinaa waa laga yaabaa in dhibaato kale kulantid caqabada ugu weyn waxa waaye waa xagga niyad jabinta aad baa lagu niyad jabinayaa hami weyn adigoo iskale oo saysid maasha Allah ka guulgaari kartaa arintan maxaa xirfadan Mr. Ibrahim Yusuf waa macallinkii wax soo baray Ruqiya wuxuuna nooga sheekeeyay gabadhani waxbarashadeedii iyo sidii ay ugu dhiiratay inay qaadato kuuliyadan ay dumarku ku yar yihiin waxbarashada si fiican ay u fiicnaato waxbarashada aad bay ugu fiicnaahay practicalka engine bloggan ay furu jirtay radiatorhan differential cam baakan diifka motooradan ay kala furfuri jirtay haddana isku xiriir jirtay inkastoo qalabna u filan waxaana la geyn jiray meel kale attachment ay loo geeyay garaashka loo geeyay dadka garaashka la geeyo way badnaayeen garaashaha loo kala qaybiyay hay'adda lacag 4 bilood ay kula heshiisay 4 bilood lacagtooda ayaa la siiyay marka saas ay ku practicalku ku barnaayeen Cabdiwali Cabdi Maxamed VOA Dadaab